Videogan waxaan kaga hadlaynaa habkii aad haddii aad haysatid linear inequality oo kale linear inequality haddaad haysatid linear inequality equation habkaad ku graph garan lahayd marka linear inequality ayaan ka hadlaynaa marka haddii aad haysatid equation oo sida tana linear inequality oo sida tan oo lagu dhahay plot garay graph garay lagu dhahay graph inaad graph garaysid mathalan mid tan oo kale y over 2 plus 2 inay ka weyn tahay x tanaa lagu dhahay plot garay marka seed u plot garaynaysaa seed u graph garayn doontaa midda tan oo kale marka sida ugu fudud waxa weeyaan waa inaad horta marka hore aad arrange garaysaa y keliya taad dhankan ku reebtaa marka ay noqoni y all over 2 2 tanaan xagga kala geynaynaa marka waxay noqonaysaa is greater than waxay ka weyn tahay x minus 2 kadibna labada dhinac waxaan ku dhufanaynaa 2 tan si fiican dhankan y bis ugu reebno soomadan garan marka waxay noqonaysaa inta waxaa noogu soo haraysa y keliyata waxay ka weyn tahay y 2 x haddaan ku dhufano waa 2x 2 haddaan minus 2 ku dhufanana waa minus 4 soomadan garan intana waa iskansaleen 1 marka hadda waxaa noo soo baxay ii sheegtay inequality equation kan linear inequality equation taas linear inequality tan baa noo soo baxday marka laakiin markaan rabno inaan draw garaysid sida ugu fudud waxa weyn waxaad samaynaysaa midda tan waxaad u bedelaysaa linear equation caadi ah soomadan garan linear equation caadi aad u bedelaysaa marka waxay noqonaysaa y is equal to baan ka dhigaynaa 2x minus 4 y is equal to tan waxa weeyaan waa inequality linear inequality weeyaan tanna waa linear linear equation caadi weeyaan tan waa linear equation tanna waxa weeyaan linear inequality soomadan garan marka si fiican tan u sawirno kan u draw garayno waa inaan horta ka dhignaa sida tan laakiinse maadaama ii sheegtid linear inequality tan ay isticmaalayso greater than marba hadday isticmaalayso signkaas marka dotted line ayaan isticmaalaynaa markaan graphkan lineka markaan draw garaynayno sababtaan dotted line u isticmaalaynana waxa weeyaan waa y is greater than marka meeshaas uu leenku taabanayo macnaha ka mid ma aha waxay y la mid tahay way ka weyn tahay marka ka mid ma aha marka dotted line ayaan isticmaalaynaa marka waan idin tusayaa habkay noqon doonto okay marka graphkan waa kan graphkeeni waxa weeyaan waa y is equal to 2x minus 1t y is equal to 2x minus 1 saad aragtiin marka waad aragtaa dotted line ayaan isticmaalaynaa somaydan arkin kulli waad aragtiin baan u malaynayaa meeshan waxaan isticmaalaynaa waa dotted line waa lane oo go-go-aya lane oo continuous isku xiran ma sababtuna waxa weeyaan waa inequality sign kan aan isticmaalayno inequality signkaas ma aragtiin waxa weeyaan ayaa keenaya inaan isticmaalin lane isku xiran sababtoo macnaheedu waxa weeyaan meeshan uu lane ku goynayo y lamid ma aha y way ka weyn tahay weeyaan samaydaan garan waa midaas midda kalena waxa weeyaan dhankan saad aragtiin waa blue dhankan hadda ii sheegtid dhankan hadda aad aragtiin waxa weeyaan kalarku waa uu ka duwan dhankan hadda kalarku uu ka duwan yahay dhankan sababtuna waxa weeyaan dhankan weeye dhanka equationka ay ka saxan tahay macnaha waa regionka la rabo region waxaa lagu daray graph garay baa lagu dhahay ama plot the graphka y inay ka weyn tahay 2x minus 1 marka regionka ay y 2x minus 1 ka weyn tahay waa dhankan haddaad aragtiin midabka
midabkan wadata oo buluug ah samaydan garan dhankan kale waxaa weeyaan ii sheegtid equationkan ma saxsana samaydan garan oo markastaba dhankan ay y ku weyn tahay dhankan waxaa weeyaan equationkan kuma saxsana samaydan garan marka sidaas ayaan ku plot garaynay graafka functionkaas graafka waxaan ka wadaa linear inequalitydaas okay hadda tusaalaheena labaad baan qaadanaynaa tusaalahan fiiriya hadda midkan haysanaa linear inequality tan waxaa lagu dhahay plot the graafka midatan 2y minus x inay ka yar tahay ama ay la mid tahay 6 samaydan garan 2y marka waxaan samayn karnaa ii sheegtid y aan dhankan ku reebi karnaa sifa saasna waa samayn kartaa sidatan xataa waad u dayn kartaa samaydan garan oo sidatan iyadoo ah waxaad samayn kartaa inaad keliyata aad linear equation aad u bedeshid oo ay noqoto 2y minus x inay la mid tahay 6 kadibna aad hadda linekan aad sawirtid linekan aad draw garaysid waa samayn kartaa sidoo kalena waxaad samayn kartaa y bisa dhankan ku reebi kartaa marka waxay noqonaysaa 2y in ay ka yartahay ama ay la mid tahay x tan xagga kala geynaynaa marka xagga kale marka la geeyo waxay noqonaysaa positive soo maha marka waxay noqonaysaa x plus 6 marka labada dhinacba 2 haddii aan u qaybino divide by 2 divide by 2 divide by 2 marka waxaa noo soo haray y inay ka weyn tahay ama ay la mid tahay x over 2 plus 3 marka linkan ayaan inequalityda tan ayaa noo soo baxay linear inequalityda tan samaydan garan oo marka tanna waan u bedeli karnaa equation oo waxay noqonaysaa sida tan linear equation haddaan ugu bedelno waxay noqonaysaa y inay la mid tahay x all over 2 plus 3 samaydan garan marka waa isku mid dabcan tan iyo tanba waa isku mid samaydan garan marka lanekan markaad sawirtid laakiin hadda mid baan rabaa inaan kuu sheego lanekan markaad sawiraysa lanekan waa continuous wuu isku xiran yahay sababtu isugu xiran yahayna waxaa weeyaan waa signkan u fiirsa waxaa lagu dhahay y way ka yar tahay ama y way la mid tahay way ka yar tahay ama way la mid tahay x over 2 plus 3 markaad sawirtid lanekan wuxuu noqonayaa continuous because meeshay y taabanayso meeshay waxaan ka wadaa lanekan uu goynayo y way la mid tahay waxay kaloo la mid tahay wixii ka hooseeya wixii laneka ka hooseeyana way la mid tahay laneka meeshuu taabanayana way la mid tahay marka hadda waan sawiraynaa sifa aad u aragtiin regionka ay sheegteed uu idinku caddaado marka waa ka function waa ka ay sheegteed graafkii ama plotkii habkaan u plot garaynay linear inequality marka linear inequality dan waxay ahayd ii sheegtid sida tan marka waxay ahayd 2y minus x in ay ka yar tahay ama ay la mid tahay 6 samaydan garan ama midatan ama sida tan xataa waan u qori karnaa y inay ka yar tahay ama ay la mid tahay 3 plus x all over 2 samaydan garan labaduba waxa weeyaan graafkan way matalayaan labada damba waa isku mid moogtihiin saan idin sheegay keliyata waa arrangement sida loo arrange gareeyo weeyaan haddaad y ina dhanka ku reebtid saanuu noqonayaa haddii aad ii sheegtid haddii aad sideeda u daysidna waxaa weeyaan sida tan ay noqonaysaa muhiimaddu waxaa weeyaan laakiinse haddii aad muhiimaddu waxaa weeyaan u fiirso haddii hadda uu ahaan lahaa linear equation caadi ah linear equation oo hadda meeshan ay ahaan lahayd ii sheegtid is equal to sign meeshan hadda dayda ku qornaan lahayd is equal to sign saan leenkan saas يعني graafka saas ma noqdeen graafku bes wuxuu noqon lahaa leenkan hadda buluug aad aragtiin
laynkan buluuga soo martin kelida bas waa la laakiin maadaama dhankan shading la sameeyey oo meeshan dhankan uu shaded yahay oo midab gaara la saaray macnaheedu waxa weeyaan waxaan ka hadlaynaa wixii ii sheegtid inequality-ga waafaqsan soomaalida garan inequality-da waafaqsan oo inequality-da maxay ahayd midaas marka y waxaa la rabaa in ay ka yar tahay ama ay la mid tahay 3 plus x all over 2 marka soomaalida arkin wixii leenka ka hooseeya oo dhan soo ma aragtiin wixii leenka ka hooseeya oo dhan y way la mid tahay that's why loo sheergariyay y waxay la mid tahay wixii leenka ka hooseeya oo dhan leenka xataa meesha uu taabanayo oo goynayana way la mid tahay seen ku ogaanaynaa in ay meesha because leenku waa solid leenku waa straight line waana isku xiran yahay waxay ku tusisaa xataa leenka meeshuu jarayo waxa weeyaan y way la mid tahay soomaalida kale laakiin tusaalihii hore aan idin tusay dotted line bay ahayd macnaheedu waxa weeyaan y la mid ma ah meeshuu leenku jarayo way ka weyn tahay macnaha saas waa tusaalihii hore marka tusaale kale ayaan qaadanaynaa hadda waxaan qaadanaynaa midatan waa example-ka saddexaad haddii na la dhaho sawir ama plot garay graafkan hadda y in ay ka yar tahay ama ay la mid tahay 2x minus 1 marka already tan waa diyaar hadda wax la rearrange garaynaya meesha malaha kaliya waxaan u bedelaynaa linear equation sifa ay noogu fududaato inaan sawirno ilan haddaad sidiisaan ku plot garaynaya way kugu adkaani laakiin marka hore waa inaad aad ka dhigataa linear equation oo waxaa ka dhigtaa y is equal to baad leedahay 2x minus 1 badanaa way fududahay inaad hadda kan sawirtid kan markaad sawirtid leenkii markaad sawirtid linear equation kan 2x minus 1 kadib waxaad fiirinaysaa region kee la rabaa region kee ah ilan leenku meel graafka uu kala goynaya moogtahay leen markaad sawirtid graafkaas wuxuu kala goynayaa graafkan regionku kala goynayaa marka dhankee waafaqsan inequality sign-kan saasaad isweydiinaysaa dhankee waafaqsan dhankee y ay ka yar tahay 2x minus 1 dhankee ka yarta ama ay la mid tahay marka midda kalena meeshan waxaan isticmaalaynaa way ka yartaa ama way la mid tahay soo ma aragtiin marka maadaama sign-ka aan isticmaalayno macnaheedu waxaa weeyaan leenku wuxuu noqonayaa continuous leenku isku xirnaanaya sababtuna waxaa weeyaan y waxaa lagu dhahaa way ka yartahay ama way la mid tahay marka way ka yartahay way la mid tahay macnaheedu waxaa weeyaan leenku meeshuu jarayana way soo hoosgelaysaa marka hadda waan sawiraynaa marka waa kan graafkeeni hadda waxaa weeyaan waa sida tan aad aragtiin y inay ka yar tahay y inay ka yar tahay aan ku qoro y way ka yar tahay ama way la mid tahay 2x 2x minus 1 سمعنا قرب marka saad aragtiin leenku waxa weeyaan wuu isku xiran yahay waad aragtiin leenka waa taagan yahay waxa weeyaan waa ma kala go'na dotted ma waa straight continuous line weeyaan sababtuna waxa weeyaan saan idin sheegay sababtuna waxa weeyaan sign-kan ayaa yeelaya aan isticmaalino soo aragtiin waa less than marka y way ka yar tahay ama way la mid tahay lagu dhahay soo maadan garan marka dhankan wixii ka jira graafka waxa weeyaan waa dhanka yar wey waa dhanka ay ii sheegtid dhanka waafaqay weeyaan inequality sign-kaas okay haddii aan hadda aan ogaano sababta dhankan loo sheergaray dhankan aan loo sheergarin seen ku ogaanaynaa dhanka waafaqaya macnaha inequality sign-kan ama inequality linear inequality datan ma dhankana talo mise waa dhankan marka seen ku ogaanaynaa waxa weeye sad ku ogaanaysa waa easy waxaad samaynaysaa point ayaad inta kasoo qaadanaysaa kasoo qaad pointiga kana soo qaadanay meeshaas haddaan soo qaadanay meeshaasna maxay tahay waa
2 waxa weeyaan waa 1 2 soo maaha 1 2 1 2 soo maydan garan marka waan ku fiirinaynaa 1 2 daas oo waxay noqonaysaa sida tan hadda booskii x waxaan gelinaynaa 1 booskii x waxaan gelinaynaa 1 maadaama pointigan aan soo qaadanay marka haddaan gelino waxaa noo soo baxaya y na waa 2 soo maaha marka waan fiirinaynaa y already waa 2 soo maaha pointiga marka 2 da soo qaado 2 way ka yar tahay ama way la mid tahay aan dhahay marka 2 times 1 waa 2 times 1 waa meeqa waa 2 soo maaha 2 times 1 waa 2 2 minus 1 na waa 1 marka ma suurtageli 2 inay ka yaraato ama ay la mid noqoto 1 ma suurtagelayso that's why dhankan regionkan ma waafaqayo dhan linear inequality tan laakiin dhankan haddaad point ka soo qaadatid point waxa weeyaan caadi waxa weeyaan way waafaqaysaa inequality aan soo qaadana hadda meeshan ayaan ka soo qaadanaynaa sheegtid pointigaas ayaan soo qaadanaya pointiga waxa weeyaan waa 3 1 waa 3 3 1 soo maaha waa 3 1 x waa 3 y dana waa 1 marka haddaad gelisid way iskeenaysaa oo 1 inta geeta y du waa 1 ma ogtahay hayo 1 wuu ka yar yahay ama wuu la mid yahay baad leedahay 2 times 3 waa meeqa waa 6 soo maaha waa 6 6 minus 1 na 6 minus 1 na waa meeqa waa 5 marka waxa weeyaan way suurtageli kartaa waa sax 1 wuu ka yar yahay 5 1 wuu ka yar yahay 5 laakiin inta sax ma aha oo 2 kama yarnaan karto 1 kama yarnaan noqoto suurtagal ma 2 inuu ka yarado oo la mid noqdo 1 laakiin tan waa sax 1 wuu ka yar yahay una la mid noqon karaa 5 macnaha waa 1 wuu ka yar yahay 5 way saas u fahmi marka that's why dhankan loo share garaynayo because waa dhanka waafaqsan inequality equationkaas dhankanna lama share garaynayo sababtoo ah waa uu khilaafaya inequality equationka waxaan rajaynayaa inaad fahanteen insha allah example-ka soo socda ee videoga soo socda waxaan ka hadlaynaa linear markaad haysatid laba inequality equation markaad haysatid waxa weeyaan habkii aad u graph garayn lahayd ood ula soo bixi lahayd the wanted region ayaan kaga hadlaynaa marka daawada kaasna insha allah